kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyad ka badan 967 milyan oo doolarka Mareykanka. wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkad laga leeyahay dalka China la galay heshiis dhinaca kalluumaysiga ah. ra'iisul wasaaraha dalka Poland oo dadka dalkaasi Poland ugu baaqay inay isdejiyaan kadib markii gantaalo ay ku soo dhaceen. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ballan qaaday in uu si daacad ah u hirgelinayo xabad joojinta ay dawladdiisu la gashay mucaaradka ka soo jeeda gobolka Tigreega. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, haddii aad horey noola soo joogtayna barnaamijka noo like garee noona sii share garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanid. aan ku bilowna war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho uuna gudoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay ku meelmariyeen miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2023. miisaaniyadan ayaa sida wararku ay dhigayaan ka kooban dakhliga gudaha iyo deeqda caalamiga ah ee dawladdu ay ka hesho, waxayna gaaraysaa 967 milyan oo doolarka Mareykanka ah. miisaaniyadan ayaa miisaaniyadda sanadkii hore si weyn uga ballaaran ama uga duwan. miisaaniyadda sanadka 2023 ayaa xoog lagu saarayaa sare u qaadida dakhliga gudaha oo hadda la rajaynayo in uu ka saramaro sanadihii la soo dhaafay uuna gaaro 283 milyan oo doolarka Mareykanka, halka sanadkan dhamaadka ah uu marayo ama ay ahayd 274 milyan oo doolarka ah sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeynna war saxaafadeedkan ayaa isagana sidoo kale lagu shaaciyay in la ansixiyay heshiisyada dhinaca difaaca ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya, Uganda iyo waliba Suudaan ee ku saabsan iskaashiga dhinaca militariga. waxaana wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu sheegay in heshiiskan uu yahay heshiis runtii aan baqaadaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya laga saacideeyo waxyaabo badan. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo ka duulaya hirgelinta maalgashiga shisheeye ee dalka ayaa si is-afgarad ah la saxiixday madaxda shirkadda China Beijing Collagen kaas oo ay shirkadu ku maalgelinayso kalluumaysiga dalka. heshiiskan oo ah isfahan labada dhinac ah isla markaana waqtigiisu uu yahay muddo sanad ah ayaa dhigaya in shirkadda Beijing Collagen ay hirgeliso xarumo lagu hagaajiyo kalluunka dalka iyo in ay maalgelin xoogan ay ku samayso wax soo saarka kalluumaysiga tonaha, kaas oo ah kalluun xilliyada qaar guurguura ayna wadaagaan dhammaan wadamada ku teedsan biyaha badweynta Hindiya iyo waliba maraakiibta shirkadaha la siiyo ruqsadaha kalluumaysiga iyadoo oo loo marayo habraacyada sharci ee dhinaca kalluumaysiga. munaasabadan saxiixeeda waxaa goobjoog ka ahaa khubaro caalami ah oo dhinaca kalluumaysiga iyo waliba wakiilada shirkadda China, kaas oo ay ka qayb galayaan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu dalkeena u leeyahay iskaashi noocan oo kala ah, isagoo sheegay in kobcinta dhaqaalaha iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badaha dalkeena uu ka mid yahay tiirarka ugu horeeya ee qorshaha xukuumadda dan qaran iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wasiirka ayaa ugu baaqay in si wada jir ah loola dagaalamo kalluumaysiga sharci darrada ah. ra'iisul wasaaraha dalka Poland ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan kadib markii gantaalo lagu sameeyay Ruushka oo 2 qof ku dilay xaafad ku taala dalkaasi oo u dhow xadka dalka Ukraine. dawladda Poland ayaa goor sii horeysay sheegtay in aysan cadeyn karin ama aysan cadeyn u haynin cidda ka dambaysa gantaaladaasi. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Ukraine ay gantaalada ku soo rideen dalkaasi Poland si ay dagaalka uga qayb noqdaan. xukuumadda Moscow ayaa beenisay eedeymaha in ay ka dambeeyeen gantaalkii ku dhacay Poland. afhayeen u hadlay aqalka Kremlin-ka ayaa sheegay in aysan wax war ah ka haynin qaraxaasi. wakaaladda wararka Ruushka ayaa sheegtay in gantaalada Ukraine ay ku dhaceen Poland. madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uusan dhici karin in gantaal uu leeyahay Ruushka uu ku dhacay Poland, haddii taasi ay dhab noqotona inay dagaalka ay toos u geli doonaan.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ballan qaaday inuu si daacad ah u hirgelinayo xabad joojinta ay dowladdiisu la gashay mucaaradka ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. hadalkan oo uu ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi Itoobiya hortiisa ayaa Abiy Ahmed waxa uu sheegay in la joogo xilligii la wada hadli lahaa khilaafka ka taagan waqooyiga dalkaasi Itoobiya lagu dhamayn lahaa wada hadal. inkastoo dagaalka ciidamada federaalka iyo kuwa Tigray uu joogsaday haddana weli gargaarka bini'aadanimo ma gaarin gobolkaasi xilli ay labada dhinac ay isku raaceen in dib loo bilaabo howlaha gargaarka. dhanka kale Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay in gargaar daawo ah ee ugu horeeyay ay gaarsiisay gobolka Tigray waqooyiga dalkaasi Itoobiya tan iyo intii la kala saxeexday xabad joojinta. ICRC ayaa sheegtay in 2 gawaari oo xamuul oo daawo ah iyo agab kale ay geeyeen caasimadda gobolka Tigray ee Maqale. xayiraadda saarneyd gargaarka muddadii 2 sano ahayd ee dagaalku u socday ayaa malaayiin qof u nugleysay gaajo iyo waliba macaluul, taasoo keentay inay dad badani ka qaxaan ama ay ka barakacaan gobolka waqooyiga dalkaasi Itoobiya ku yaala ee Tigray. warkii aad kala socoteen channelka galka wararka daawadayaal waa naga intaas. inta aan ku kulmayno warkan lamid ah waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelka noo subscribe gare, haddii aad horey noola joogteen barnaamijka noo like gare, siina share gare si uu dad badan oo u gaaro. mahadsanid.